soo dhawaada. ninkan agteeda taagani waa ninka ugu taajirsan ee dhalinyaro ah, mana uusan gaarin 30 sano. Hi, waxaan ahay Rachel Travel, waxaan jiraa 26 sano. ninkani kama imaanin New York, kama imaanin California, kamana imaanin wadanka Sweden, balse wuxuu ka yimid Rayagada oo ku taala India. waa meel aysan dadkeedu samaynin wax ka badan $10 maalintii. haddaba waxaan rabaa inaan markii u horeysay idinla wadaago sheekada nin dhalinyaro ah oo ka mid ah kuwa ugu taajirsan adduunka. Ratish wuxuu koray isagoo faqiir ah. marka uu 18 sano jirayna waxa uu la halgamayay sidii uu jaamacad u aadi lahaa, ma uusan lahayn wax xirfad ah. runtii xilligaas waxay ahayd xilli adag, waxayna ahayd mid ka mid ah xilliyadii ugu adkaayay soo mara. marmarka qaar waxaa dhacaysay in laga saaro gurigiisii iyo meeshii uu ku noolaa, iyadoo markaasi ay akoonkiisa oo ku jirto oo keliya $50. wariyihii ayaa markan waxa uu weydiinayaa, marka sidee baa ku noqotay milyaneer? markaas waxa uu leeyahay, lacagtu ma ahayn waxaan aad uga taxadari jiray, keliya waxaan ka taxadari jiray sidii aan u xallin lahaa problemyada. waana u xalliyay arrintaasi. waxa uu ogaaday inuu jiro hotel ama albergo u dhow oo inta badan cidna aysan deganayn, mulkiilaha hotelkuna uusan lacag ka samaynaynin. waxa uu markaasi u tegay mulkiilihii, waxaana u qaatay khatartii ugu weyneyd oo noloshiisa. waxa uu ballan qaaday inuu hotelkiisa sidan ka fiicnaan doono, waxaana uu bilaabay inuu bedelo leerarka sariiraha. waxa uu qol walba dhigay biyo la cabo, waxa uu qol walba ku dhajiyay sawirro qurxoon, waxa uu qol walba u diyaariyey adeegii uu u baahnaa, waxaana uu ka qaaday sawirro qurxoon isagoo geliyey internetka. waxaana uu bedelay magacii hotelka, waxa uu bixiyey Oyo Hotel. isla markiiba hotelkii cirka ayaa u galay, oo haddii uu cidlo ahaan jiray hadda mar walba waa buuxaa, waana ay shaqaysay fikradaasi. waxa uu leeyahay mulkiilahani, markii hore hotelka inaan hal hotel bedelo way adkeyd, laakiin hadda waxaa ii fudud inaan bedelo 100 hotel. markuu 20 sano jiray waxa uu lacag ka aruuriyay dadka maalgashadayaasha. markuu 21 sano jiray waxa uu shaqaaleysiiyay 50 qof. markuu 22 sano jirayna waxa uu haystay 500 oo hotel, isagoo markuu 24 sano jirayna haystay lacag dhan $1 bilyan. hadda oo 26 sano jir yahayna waxaa hoos tagtaa 43,000 oo hotel, isagoo abuuray silsiladaha labaad ee adduunka hoteelada ugu waaweyn, mana uusan weli gaarin 30 sano. waxa uu leeyahay, dad badan waxay oran jireen dhowr jeerna igu celceliyeen inaan jaamacadda aado aniga oo waalidka caawimaad weydiisanaya, waxayna ii oran jireen arrintaana ma shaqaynayso. wariyihii waxa uu leeyahay, waxay ahaayeen crazy ama dadaan fakaraynin. bal fakar mar labaad, nin ka yimid magaalada ugu faqiirsan ee Hindiya oo markaasi haystay oo kaliya 50 senti ayaa noqday mid ka mid ah dadka dhalinyarada ah ee ugu taajirsan 6 sano gudahood. waxa uu shaqaaleysiiyay ilaa 350,000 oo qof. ma arrin nasiib ah, waa arrin ku timid shaqo adag oo la qabtay. waxa uu shaqayn jiray habeenkii, waxa uu shaqayn jiray maalmaha fasaxa, waxa uu garaaci jiray albaab walba, waxaana uu sidoo kale u diri jiray dadka emailo. waana uu guulaystay isaga oo ka gudbay caqabad walba oo ka hor imaanaysay dadka isaga la midka ah. waxa uu leeyahay, waan rumaysnahay nasiibka, laakiin sidoo kale waxaan rumaysnahay shaqada adag ee la qabto. mar walba oo aad si adag u shaqaysidna waxaa kordhaya nasiibka aad ku guulaysan karto. ugu dambeyn, marka aad meel iska dhigto waddanka aad u dhalatay, halka aad ka soo jeedo, da'daada, jaamacadda aad ka soo baxday, inaad guursatay in kale ama nooca jinsi aad tahay, waxaad gaari kartaa meel sare. barnaamijkan waxaa iska leh Nas Daily, anigoo Saciid Khaliif ahna waan tarjumay.